safar dhinaca webiga isla markaana qaatay dhowr saacadood ayaan la galay howlwadeyno ka mid ah hay'adda SYBD. safarkan ayaa daarnaa soo qiimeynta deegaanada waqooyi kaga beegan beledweyn oo ay ku rugmadeen daadadka ka dhashay roobabka miyigaanka ah oo ka da'ay guud ahaan dalka. sidoo kale hay'adda SYBD ayaa deeq xoolo nool oo kor u dhaafay 500 gaarsiisay deegaano ay ka mid yihiin Balduusalaam iyo Bacad Boko, halkaasi oo qoysas danyar ay ku saameysay fatahaadda ka dhalatay roobabka. Dr. Cabdullaahi Sheekh Abuukar ayaa ka warbixiyay talaalka uu sameeyay xoolaha ka hor inta aan loo qaybinin qoysaska. waxaan xoolahan ka daaweynaynaa cudurrada haddii la yiraahdo ecto and endoparasite la yiraahdo. waxa way ecto hadaad maqasho waa wixii kor saaran jirka korkiisa saaran cayaan oo cunaa. endoparasite wixii gudaha ku jiro xasharaad oo haddii la koroniyo gooryaanka uu kamid yahay. waay daawadaas labadaas cudur ay daaweynaysa. waan arkaa xoolo mid oo haddii la koro food rot qaba oo afgarfo qaba. waxaan ku daaweyn doonaa haddii la koron yahay aerosol spray aan ugu buufinayna afka ama raafka wixii gumad ku qaba oo raaf dilaac qaba ku daaweyn doonaa insha Allah. wixii haddii la yiraahdo indhaha maartay ka xanuunsan oo wax ay ka galeen waxaan ku daaweyn doonaa haddii la koron yahay daawooyinka antibiyootiga boomato tetracycline boomato. dhinaca kale Cabdirashiid Aadan Cabdulle oo ka socda hay'adda SYBD ayaa ka hadlay deeqdan xoolaha nool oo ay gaarsiiyeen dadka danta yar ee ku nool Bacad Boko Balduusalaam isagoona hay'adaha kale ugu baaqay inay u soo gurmadaan bulshadu. ka socda hay'adda SYBD waxaan maanta joognaa labada tuulada Harcadey iyo Balduusalaam. waxaan u sameynaynay 100 qoys ah. 100kaas qoyskii wuxuu qaadanayaa 5 neef. 5taas neef oo loogu talagalay inay dhaqaal ah dadkaas oo waliba ugu talagalnay aan u soo xulanay dadkaas oo ah dad aad u jilicsan saameeyeen abaarihii haddana ugu darsameen biyo baxadii dadkaas oo aad ugu baahnaa arigaas oo ari dhaqaal ah. labada tuulana waxaa la kala dhahdaa tuulada Balduusalaam iyo tuulada Bacad Boko. waana 100 qoys. qoyskiina wuxuu qaadanayaa 5 neef oo ari ah oo dhaqaal ah. waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inuu arigaas u badan doono xilli hadda roobna ugu soo aaday. waxaa kaloo u baaqaya hay'adaha kale cid taakuleen karto tuulooyinkaas. waxaa ka jiro dhibaatooyin oo hadda go'doon biyaha ka jiro horna abaare u soo mareen. marka anagoo hay'adda SYBD 100kaas qoys ayaan ugu talagalnay dadka jilicsan in qoyskii 5 neef la siiyo oo dhaqaal ah inay dhaqdaan birika maalin u noqdo u tarmo moor buuxda u noqdo insha Allah taala. hay'adaha kale waxaan ka codsanaa inay wixii kale baahi bini'aadan lama dabooli kare in macnaha ay u soo gurmadaan. anagana wixii kale oo heli karno tuulooyinka kalena waxaan jeclahay inaan gaarsiino wixii aan awoodi karno. kuwana intaas 100kaas qoysan ugu talagalnay oo labada tuulo Balduusalaam iyo Bacad Boko. hay'adda SYBD ayaa noqonaysa hay'addii ugu horeysay ee deeq inta la gaarsiisa dadka ay saameysay fatahaadda isla markaana soo saamisa xaddiga ay la eg tahay dhibaatada ay wajahayaan bulshadu. Abdulqani Cali Quality 5 Somali TV xoolo qaybinta SYBD Beledweyn. wax ka ogow faa'iidooyinka qaadashada kaarka casriga ah ee IBS Classic Visa Card. IBS Visa Classic Card waxa uu haystaa ogolaansho caalami ah. waxa uu ku fududeynayaa inaad si fudud u maamulin karto lacagahaaga meel kasta aad joogtid si ammaan ah. xilliyada safarkaaga ha ka walwalin qaadashada lacag cadaan ah. IBS Visa Classic Card waxaad ku isticmaali kartaa dunida meel kasta aad u safartid adigoo lacagtaada kala bixi kara ATM-yada yaala adduunka. IBS Visa Classic Card waxaad wax ugu iibsan kartaa suuqyada iyo dhammaan dukaamada caalamka. sidoo kale wuxuu ku fududeynayaa inaad wax ka iibsan kartid internetka. ku horumari xirfadahaaga aqooneed oo wax ka bar internetka adigoo isticmaalaya IBS Visa Classic Card. IBS Visa Classic Card wuxuu ku sahlayaa in aad lacagaha aad ka sameeyso internetka ama kugu soo dhac baybalka uga bixi kartid si fudud oo ammaan ah. qaadashada iyo dalbashada kaarka IBS Visa Classic Card waa in ka yar 5 daqiiqo.
booqo xarunta kugu dhow ee IBS Bank.